aan ku bilownay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxaa toddobaadkan u buuxsamay 5 sano oo uu fadhiyo xafiiska 4 sano oo ah muddo xileedkiisii iyo sanad dheeraad ah madaxweyne farmaajo ayaa u muuqday inuu xilka sii haynayo ilaa inta baarlamaanka ama isaga uu dib u dooran doono ama madaxweyne cusub uu iman doono haddaba Soomaaliya xaalkeeda sidee buu ahaa sanadkii dheeraadka ahaa ee farmaajo uu xilka hayay warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdicasiis Barro sanadkii dheeriga ahaa ee u raacay muddo xileedkiisa madaxweynaha uu waqtigiisu idlaaday ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo dalka uma ahayn mid fudud waxana uu ahaa mid wata culeysyo iyo caqabado badan marka laga eego xagga siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha wadanka magaalooyinka Muqdisho Baraawe Beledweyne Guriceel iyo Boosaaso waxaa ka dhacay colaado dad ay ku dhinteen oo lahaa wajiyo kala duwan oo siyaasad iyo amniba la xiriiray doorashooyinka oo dib u dhacay ayaa sidoo kale abuuray khilaafaad siyaasadeed oo marar badan caasimadda ku sigay inay dagaalo dib ugu laabato maciishada iyo shidaalka ayaa sidoo kale qaali noqday waxaana loo sababaynayaa xaaladaha siyaasadda ee uu dalku wajahayo heshiisyo siyaasadeed oo la galay oo ku saabsanaa doorashooyinka ayaa shaqayn waayay iyadoo fadhiyo kale oo Muqdisho dhowr jeer lagu yeeshay mar kale arrintaasi lagu xaliyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa khilaafaad aan la xallin ayaa u dhaxeeya in farmaajo sanadkii lixaad ayuu saaka galay taasoo khilaafsan sida ku cad dastuurkan Soomaaliya qodobkiisa 91 oo dhigay muddaxaadka madaxweynuhu waa 4 sano oo ka bilaabata maalinta loo dhaariyay marka waa 6 sano oo imka galay saaka ku jira taas waxa dheeri ah wuxuu soo kordhiyay ku qas iyo qadala siyaasadeed oo caam ah Soomaaliya oo meel kasta dabo ka shiday gidow ka shiday Kismaayo ka shiday Baydhabo ka shiday Beledweyne ka shiday Dhuusamareebo ka shiday Boosaaso ka shiday Garowe ka shiday haddii uu kari karo Burco iyo Hargeysa waa ka shiday wuxuu kaloo sameeyay in caawa ama maanta madaxtooyadii Soomaaliya inuu khad cagaaran yaalo oo asaga iyo ra'iisul wasaarihii in uu khad cagaaran u kala yaalo shalay inuu gudoomiyihii gobolka golaha shacbiga oo midna uu guri ku xirtay midna uu xilka xoog uga qaada asoo isticmaalaya ciidamada Soomaaliya inkastoo caqabadahani jireen haddana sanadka dheeriga ku ah madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu galay safarro dibadda waxna uu ka qayb galay shirar iyo caleemasaar madax kale diblomaasiyadna waxa uu ka gudoomay warqadihii aqoonsiga ee danjiranimo sanadkii shanaad ee uu madaxweyne farmaajo xilka hayo sanadkii ugu dambeeyay ah waxaa qabsoomay Soomaaliya arrimo muhiim leh oo mug leh waxa ugu muhiimsan in doorashadii dalka ay socoto oo sanataradii aqalka sare doorashadiisa ay dhamaatay 150 xildhibaan ku dhawaadna hadda la doortay doorashadii kalena ay socoto magaalooyinkii labaad ay doorashadii hadda ka bilaabmayso sida magaalada Baraawe magaalada Beledweyne runtii dib u heshiisiin xoog leh oo mug leh ay ka socoto maanta dhinaca diblomaasiyadda madaxweynuhu wuxuu qaabilay 18 danjire ayuu nuqulkii warqadaha aqoonsiga ka qaabilay oo ugu dambeeyay danjiraha Mareykanka waxa kale oo diblomaasiyad ahayd in Soomaaliya ay guul weyn ka gaartay murankii badda ee kala dhaxeeyay Kenya oo loo xukumiyay Soomaaliya hadda doorashadii aqalka sare way idlaatay in ka yar 50% sidoo kale waxaa la doortay xildhibaanada baarlamaanka ee golaha shacabka laakiin walaac ayaa laga qabaa hanaanka loo maareynayo doorashooyinka oo dadka qaar ay ku tilmaameen inay tahay mid aysan ka muuqan hufnaan oo shacabka Soomaalida iyo saaxiibada beesha caalamkuba niyad ku ah sida hadda ay wax u socdaan marka laga yimaado sida aqoonyahanka iyo siyaasiyiintuba ay wax u arkaan shacabka Muqdisho ayaa qudhooda ku kala aragti ah marxaladaha uu hadda dalku wajahayo magacaygu waa Maxamed Macow madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo halkii sano oo meesha joogay wax badan oo qabsoomay wadankan waxa way systemkii uu ku socday system ka duwan oo dawli ah ma noo muuqda aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inuu wadanka hogaamiyo magacayga waxa waa Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo loo garoonayaa Xasan Qaraabo sanadkii ina dhaafay markuu bilaabanayay wuxuu la bilowday mudaharaadyo iyo dhibaato bartamiisan waxay sanad dagaal ay ahayd waxyaabihii la filayay inay Soomaaliya u qabsoomaan ma qabsoomin ilaa haddana lama ogo
sida ay wax noqon doonaan. madaxweyne Farmaajo oo hadda 5 sano jooga xafiiska waxa uu wajahayaa mucaarad xoogan. madaxweynayaashii hore oo musharaxiin ah iyo siyaasiyiin kala duwan ayaa naawilaya kursiga uu ku fadhiyo, laakiin isaga weli kuma dhawaaqin inuu musharax yahay. dalka waxa uu ku jiraa marxalad adag oo amni ah, si looga baxase waxay u baahan tahay qorshe degan iyo siyaasad xasilan oo ay sal u tahay doorasho. Cabdicasiis Barrow, qubanaha VOA, Muqdisho. haddaba sharci noocee ah ayuu madaxweyne Farmaajo ku joogaa xafiiska muddada sanadka dheeraadka ah ee hadda u dhamaatay? dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya si arrimahaasi maxaa uga yaala? sidaas looga baaqsan karaa in madaxweyne dambe aanu dhaafin muddo xileedkiisa? arrimahan waxaa nala falanqeynaya Ibrahim Idla Suleymaan, gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya oo Muqdisho ku sugan. marka ugu horeysa gudoomiye soo dhawow barnaamijka qubanaha VOA. waan salaamayaa VOA hawlwadanadeeda iyo inta dhageysanaysa ee ku xidhan ama cod ahaan ha u dhageysato ama suurad ahaan ha u aragtee dhammaantiin baan salaamayaa. ahlan wasahlan. sharci ahaan madaxweyne Farmaajo muxuu u cuskanayaa in uu xilka sii hayo sanad dheeraad ah oo hadda u dhamaaday iyo muddo laga yaabo dhowr bilood inay dhici karto inay soo raacdo? بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. horta sayn loo socono muddaxileedkiis waxay ahayd muddo 4 sanadood oo ka soo bilaabaysay 8 bishii Abriil 2017 oo ahayd xilligii la doortay ee loo dhaariyay xafiiska. waxaana ahayd muddadaas waxa loo doortay 4 sanadood ayay ahayd oo maalinta ka soo bilaabaysay kuna dhamaanaysay 2021 bishii labaad isla maalinta taariikhda ku beegan ayay ahayd. wixii intaa ka dambeeyay waxay noqonayd wax ka baxsan dastuurka oo dastuurka aan ku sal haba yaratee aan ku lahayn. haddii la yiraahdo muxuu u daliishanayaa waxaan waxay qumnaan lahayd in la taliyihiisa sharciga arrinta ka jawaabo, laakiin waxaan filayaa heshiiskii baarlamaanku ansixiyay ee lagu gudbay doorashooyinka 19 September 2020 ayaa waxa ku qorna qodob dhigaya in hay'adaha dastuuriga ah ee kale marka baarlamaanka laga tago ay muddada xiloodkeeda sii haynayaan. marka kelmaddaas oo ay u adeegsaday heshiiskaas oo ahayd sii hayn, marka madaxweynuhu wuxuu ku fadhiyay qodobkaas oo ahaa sii haynta ayuu ku fadhiyay, laakiin dastuuriyan kuma fadhiyin oo ahayd in uu xilka sii hayo, laakiin aanu lahayn awood tasarruf dawladeed oo ku qaato qaraaro oo ku soo saaro amaro oo uu maartay hay'adaha dawladda uu ku wado ma ahayn, laakiin waxay kaliya inuu xafiiska sii hayo. marka laakiin waa ay dhacday in go'aanana la gaaray. waxaa kamid ah ciidamo meelo kala duwan loo diray, waxaa kamid ah isbedelo lagu sameeyay dawladda dhexdeeda, ama ha noqdo mid ka timid ra'iisul wasaaraha ama ha noqdo mid madaxweynaha ka timid. arrimahaas oo dhan muxuu sharcigu ka qabay? wixii ka baxsan sharcigu waxa weeye waa cad yahay, waxa weeye waxa la yiraahdo sii hayntuna waxa weeye macnaheedu awood siinayso in uu hawlaha dawladda uu go'aamahaas oo kale inuu qaato, amaradaas oo kale inuu qaato, inuu magaca dawladda wax ku bixiyo xataa darajana ha noqotee ma siinayso, awoodna uma laha. haddii uu sameeyayna waa wax sharci darro oo ka baxsan xuduudihii sharciga iyo wixii uu xafiiska ku fadhiyay ayay ahaayeen. inkastoo sida aad sheegtay ay tahay dastuurka uu dhigayo in hay'adaha markaas sii jooga ay sii joogaan, maxaa ka hor istaagaya madaxda kale la dooran doono ee soo socda iyana inay qodobkaasi cuskadaan haddii aanay jirin shuruudo kale oo ku xiran oo xadidaya muddo kororsiga? waxa ka hortaagaya madaxda dambe ee iman doonta waxay ku xiran tahay sideedaba madaxweynaha ama hay'adaha dawladda waxa jirta wax xakameeya awoodda iyo isticmaalka awoodda ay isticmaalayaan. madaxweynaha waxa xakameeya laba hay'adood baa xakamaysa oo si dhab ah u xakameeya. hay'adda baarlamaanka oo siyaasiyiin oo la xisaabtanta iyo hay'adda kale oo ah garsoorka waliba maxkamadda dastuuriga. marka labada hay'adood ayaa si wada jira ula xisaabtama. ummadda Soomaaliyeed waxa uga damaana inaan noocan kale aanay soo noqon, xaaladuna kale aanay soo foosaarin. waxa uga damaana in ay doortaan baarlamaan ama baarlamaankooda noqdo mid xilkasa oo awoodaha dastuuriga ah ee la siiyay
sideeda u gudan karaya waajibaadkii iyo mas-uuliyaddii shacabka uga wakiilka u qabanaya dhisa maxkamaddii dastuuriga ahayd ee iyaduna gacanta kale u ahayd waa madaxweynaha xakamayntiisa waxay weji siyaasiyeed iyo weji sharci bay leedahay marka dastuurkuna sida ku xusan qodobka 29 wuu sheegay sida madaxweynaha marka uu dastuur jabin sameeyay xaaladdan dhacday oo kale loo maamulayo laakiin iminka waxay tahay dastuurkiina baarlamaankiina waynu ogeyn tobnaad sidii xaalkiisu ahaa ku noqon mayno wax isla ogaa weeyaan maxkamad dastuuriyana lama samayn oo waxaa hadda magac dhowday in ay muhiim tahay in la sameeyo maxkamad dastuuri ah oo iyadu go'aan ka gaari lahayd marka sharciyada la isku qabsado waxaad soo ahayd gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare hadda marka aad fiiriso culeysada dhinaca sharciga ah iyo dastuurka oo ay dowladihii dalka isaga dambeeyay ay wajahayeen baahi intee leegaa kuu muuqata in loo qabo habeen lagu sameeyo dastuurka iyo in la sameeyo maxkamaddii dastuurka iyo hay-adihii adeega garsoorka intaba markii la arkay madaxweyne mudaxileedkii ixtiraamayn oo maarta aan ku joogsanayn markii la arkay hay-adihii dowladda oo aan dastuurku sidii waxa ugu shaqaynayn oo aan tixgelinayn ayaa iminka Soomaali oo dhan mid ay joogaanba mid siyaasiya mid aqoon-yahana mid indhalgarataan mid bacmishtara mid jooga heer federaal mid jooga heer maamul goboleed wuxuu dareemayaa oo ku baaqaya in si degdeg loo sameeyo maxkamadda dastuuriga marka maxkamadda dastuuriga sameynteedu maanta waa baahi ummadeed waa baahi dowladeed waa baahi qaran ummadda oo dhan baa waxay aaminsan tahay haddii aan lahayn maxkamadda dastuuriga ahayd in aan laga baxaynin fowlada tan bilaabatay ee xagga shuruucda ah iyo kutumashada dastuurka aad u mahadsan tahay waa mahadsantiin aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa kaasi waxa uu ahaa gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidla Suleymaan oo qadka Skype-ka noogu waramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.